siddeetan dal qaar nuclear way samaysteen, qaarna waxay rabeen inay samaystaan, qaarna way haysteen laakiin waa laga qaaday. Ku soo dhawaada muuqaalka. dalka South Africa xilligii siddeetamaadkii dadka caddaanka ay talinayeen ay dadkan midowga guumaysanayeen cunsurinimada kula dhaqmayeen xilligaayay hub nuclear samaysatay si qarsoodi ayayna u samaysatay waxayna samaysay 6 madax oo nuclear ah laakiin xilligii shaqashamaadkii markii la soo gaadhay ay dhacday kacdoonkii dadka madow Nelson Mandela hogaaminayay waxaa dhacday inay 6dii madax ee nuclear-ka kala furfuraan taasoo macnaheedu tahay dalka Koonfur Afrika xilliga dadka caddaanka ka talinayeen hub nuclear ay samaysatay laakiin dadka madow markay xukuumadda la wareegeen 6dii madax ee nuclear-ka waa ay burburiyeen sababtan waa fahmi kartaa dadkan madow inuu hub nuclear gacanta u gelin dalka Ciraaq xilligii Saddam Hussein waxaa dhacday inuu siddeetamaadkii Saddam Hussein isku dayo inuu hub nuclear samaysto iskagoo warshadii uranium-ka laga dhalinayay sameeyay kadibna iskagoo u gudbin marxaladii plutonium sanadii 1990 markaasuu Saddam Hussein weeraray Kuwait oo uu bilaabay dagaalkii Khaliijka waxaa dhacday in Israa'iil burburiso warshada lagu sameeyay hubka nuclear-ka dalka Suuriya xilligii Bashar al-Assad 2007 waxaa dhacday inuu isagna si qarsoodi iskugu dayo inuu samaysto hubka nuclear-ka iskagoo adeegsanayo khubaro ka soo jeedo waqooyiga Kuuriya laakiin waxa 100% ogtihiin cidda burburinayso isku dayga samaysashada hubka nuclear-ka waana gumaystaha Israa'iil ayaana burburiyay warshadaas inkastay beenisay xukuumadii Bashar al-Assad isku dayga samaysashada hubka nuclear-ka haddana qaramada midoobay waxay cadeeyeen inay Suuriya isku dayeysay inay samaysato hubka nuclear-ka dalkan Ukraine wuxuu ka tirsanaa midowgii Soviet wuxuuna ahaa xilliga gobolada ugu muhiimsan ee midowgii Soviet laakiin bilowgii 90-maadkii markii uu burburay midowgii Soviet dalkan cusub ee samaysmay ee Ukraine waxaa dhacday inay dhulkiisa yaaleen dhowr madax oo nuclear ah laakiin xukuumadii ka samaysmatay xilliga dalkan Ukraine madaxda nuclear-ka si toos ah umaysan maamulin waxa laga maamulayay Moscow oo xilliga noqotay caasimadii dowladda Ruushka dalkii Ruushkana wuxuu ka codsaday dalkan cusub ee Ukraine inay hubka nuclear-ka u soo gacan galiso laakiin xukuumadii Ukraine xilliga waa ay diiday inay hubka nuclear-ka Ruushka u gacan galiso laakiin arrinka waxa soo farageliyay qaramada midoobay oo aan ka wado Mareykanka ayaa ku dhacay xukuumadii xilliga Ukraine hubka nuclear-ka ku wareeji dalka Ruushka dalkan Ukraine annaka ayaa nabadiisa ilaalinayno kadib waa ay ku wareejisay laakiin 30 sano kadib 2022 wixii dhacay waad ogeydeen dalkii Ruushka ayaa ku soo shaqajaamay dalkan Ukraine dagaal ayuuna ku soo qaaday haddii hubka nuclear-ka haysan lahayd sida umuusan soo fiiriseen dalkii Mareykanka ku dhahay madax banaanidiina annaka ayaa ilaalinaynana maanta waa u dayacay 4 sano dagaal kadib dalkan Kazakhstan isagna wuxuu ahaa goboladii ugu muhiimsanaa ee ka tirsanaa midowgii Soviet waxaana ku yaalay warshado fara badan oo hubka nuclear-ka lagu sameeyo kadib bilowgii 90-maadkii markuu midowgii Soviet-ka burburay dalkan Kazakhstan markaa uu samaysmay dalkan Kazakhstan isagna waxaa yaalay intaasoo madax oo nuclear ah warshadihiina waa ay ku yaaleen laakiin nasiib xumo dalkan isagna madaxdiisii nuclear-ka wuxuu ku wareejiyay dalka Ruushka dalkan kale Belarusia isagna sida Ukraine iyo Kazakhstan wuxuu ahaa goobihii ugu muhiimsanaa ee goboladii midowgii Soviet-ka isagna markaa uu noqday dal waxaa dhacday inuu hubkiisii nuclear-ka sida Ukraine iyo Kazakhstan ugu wareejiyay dalka Ruushka ayuu isagna ugu wareejiyay madaxdiisii nuclear-ka Liibiya xilligii Muammar al-Gaddafi waxaa dhacday inuu isku dayo inuu samaysto hubka nuclear-ka wuxuuna dhisay warshado laga dhaliyo uranium-ka si loo sameeyo hubka nuclear-ka laakiin sanadii 2003 markii uu Mareykanku ku duulay dalka Ciraaq sababtu ugu duulana ay ahayd inuu haysto hubka sida xun wax u burburiyo Gaddafi waa uu isdiibay wuxuuna wada xidhay goobihii lagu bacriminayay uranium-ka sidaana wuxuu ku joojiyay isku daygiisii samaysashada hubka nuclear-ka
Iiraan sanadihii ugu dambeeyey cunaqabatayn dhaqaale ayaa saarneyd, sababtuna waxay ahayd inay Iiraan isku dayaysay ilaa hadda samaysashada hubka nukliyeerka. Saas darteed waxaa la saaray cunaqabatayn dhaqaale. Gaaskayga iyo betroolkayga dibadda uma iibgeyn karin si toos ah, waxaana laga dilayay marar fara badan culimmadeedii nukliyeerka samayn rabay. Wadahadal dheer oo socday sanadooyin oo lagala hadlaya Iiraan inay joojiso samaysashada hubka nukliyeerka. Ugu dambeyn, dhammaadka bishii labaad, waxaa dhacday inuu Maraykanka iyo Israa'iil si toosa dagaal uga soo qaadaan. Inkastoo Iiraan laga laayay madaxdii ugu sarreeyay xukuumadda iyo madaxdii ugu sarreeyay jeyshka, haddana dagaalku waa uu socdaa. Iiraanna way isdhiibi la'dahay hubkeygii samaysashada hubka nukliyeerkana weli hadda kamaysan tanaasulin.